wafdi sare oo warkacayay kusimaha danjiraha dawladda Ireland u fadhida dalkan Itoobiya ayna ku wehelinayeen mas'uuliyiin sare oo ka socotay safaaradaasi ayaa socdaal ku yimiday magaalada Jigjiga isla markaasina kulan la qaatay wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha deegaanka mudane Cabdirasaaq Sheekh Cabdiraxmaan Sayid. kulankan oo ka dhacay hoolka shirarka xafiiska madaxweynaha deegaanka ayna goobjoog ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka xafiiska maareynta khataraha iyo masiibooyinka deegaanka iyo la taliyaha madaxweynaha dhinaca maalgashiga ayaa waxa laga wada hadlayay doorka ay ka qaadan karto safaaradda Ireland arrimaha nabadgelyada iyo guud ahaanba horumarka deegaanka. waxaana kulankan si gaar ah la isku dul taagayay arrimaha ay ka mid yihiin si adkaynta geedi socodka nabadgelyo ee deegaanka hadday tahay ururadii nabadda qaatay iyo amniga guudba tii oo ugu horreyntiina wasiir ku-xigeenku u soo bandhigay wafdigan xaaladda guud ee deegaanka iyo meelaha taakulaynta u baahan. kadib markii uu soo gabagaboobay kulankani ayaa waxaanu wax ka weydiinay mudane Cabdirasaaq Sheekh Cabdiraxmaan Sayid wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha deegaanka waxyaabaha ay sida gaarka ah uga wada hadlayeen iyo waxyaabihii ka soo baxay kulankan. waxaa maanta na soo boqday niskii dambe wafdi uu hogaaminaya kusimaha safaaradda Ireland ee Addis Ababa shirkoona waan wada yeelanay hadda hordhacaha shir kaloo labaadna kulley bari ku jiraya sababta soo boqdayna wuxuu ahaa inay waddankana indhaynayaan waxyaabaha ay gacan inaga siin karayaanna aanu iska xog wareysano wuxuu ahaa kulley xoog waxay saarahayeen xalinta khilaafaadka iyo doorka ay ku leeyihiin iyo inay khibrad dheer u leeyihiin maadaama ay wadankooda uu door weyn ka soo qaadan jiray xalinta khilaafaadka adduunka meelo fara badan qorshahooda guud u socdeen kulley kaas oo ahaa wayna nala joogeen ilaa ya caawa sii joogeen barina haddii la yiraahdo kulan kale ayaan isugu iman doonaa meel fara badan kor istaagna laakiin waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa inay gacan wax ka qaadanayaan nabadii waddanka ka dhacday sidii horay loogu sii wadi lahaa halkii maanta taagan tahayna horay loogu sii wadi lahaa bay ballan qaadan kulley gacan naga siin doonaan iyaga oo ka faa'iideysanaya khibradii ay horay u soo lahaan jireen xalinta khilaafaadka waayo waxaan ognahay waddankeena inuu maanta u jeesaday tubtii nabadda inuu cagta saaray taana kumaysan imanin si dhib yar kumaysan imanin hogaamin ay ka go'an tahay inay tubtaas iyada saxda ay cagta u saarto ay meel gaarsiiso ayaa kulley meesha timid marka nabadda iyadaha ee hogaamintaasi keentay sidii ay horay uga sii wadi lahaayeen ayay kulley naga ballan qaadeen. dhankiisa mudane Patrick McNass kusimaha safiirka dawladda Ireland u fadhiya magaalada Addis Ababa ayaa waxaanu wax ka weydiinay ujeedada guud ee socdaalkoogan iyo waxyaabaha ay la kulmeen. Okay, the objective of this visit really today and the next few days. ujeedada booqashadeena maanta iyo maalmaha aynu ku soo fool kalaba sida cad dawladda Ireland waxa ay xiriir fiican oo cusub la yeelatay dawladda deegaanka Soomaalida tii oo si guud xiriir fiican u leh dawladda federaalka si ay ula shaqeyso dawladda deegaanka Soomaalida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dhinacyada adkeynta nabadgelyada iyo amniga cadaaladda dhisida hiigsiga mustaqbalka fog ee deegaanka. tan intii uu xukunka qabtay ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed waxaa waddanka wada gaadhay isbeddel kala duwan hadday tahay dhanka siyaasadda dhaqaalaha xorriyatul qowlka nabadgelyada iyo dhinaca bulshadaba. deegaanka Soomaalida waxaa ka muuqda isbeddel aad u wanaagsan iyo maamul wanaag deegaanka ah sidaa daraaddeed waxa aan ku dadaalaynaa in aanu sida ugu wanaagsan aanu ugala shaqayno dawladda deegaanka Soomaalida si aanu u sii adkayno geedi socodka nabadgelyada ee deegaanka ka socda. nabadgelyaduna waa furaha shay kasta iyo horumarka guud ahaanba. aad baan ugu faraxsanahay inaan soo booqdo magaalada Jigjiga isla markaana aan eego halka ay marayaan qorshayaashii nabadgelyada ee la bilaabay hadday tahay ururadii soo xarooday iyo tan guudba. socdaalkaygii ugu horreeyey kadib booqashadan maanta waxa aan ku arkayaa deegaanka xasilooni iyo deganaansho aad u ballaadhan. sidoo kale dadku shaqooyin wanaagsan ayay wadaan deganaansho badan ayaan arkaa. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arrimahaasi ka shaqayn doono ka safaarad ahaan. mahadsanidin. wafdigan uu hogaaminayay kusimaha safiirka Ireland u fadhiya Itoobiya ayaan ahayn kii koobaad ee markaasi kusimaha safiirku ku yimaada deegaanka balse waa socdaalkii labaad waxaana lagu wadaa in wafdigani maalmaha fooda inagu soo haya uu ku sugnaan doono deegaanka.